واتاي داود يال وحين كلا soo hadlaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaan nasiib u yeeshay inaan caawa la kulmo qoraal sare Mustafa Timacade oo kamid ah qoraayaasha Soomaaliyeed waxa uu caawi guddoonsiin doonaa buugga waayihii Dhuusamareeb oo ah buug ay xoga badan oo taariikheed oo magaalada tani aan kala soo hadlaya Dhuusamareeb ay ku qoran yihiin maadaama aan nasiib u yeelan inaan Dhuusamareeb ku dhashay أنا نكسر بربارين وحبوجا إيجا عاون دونا واحد بدن وأنا دوس مريب كأقون إنك كبرته أستاذ مصطفى سودو وما سنتهي فرع عدة رنتي بوجا محلي هذا ويه دوس مريب وحكى هلا يا تاريخ عاصمة الجلمدوك ما دام عاصمة الجلمدوك هذا كجرته مرحلة وفعنا يدي بسوق بشدة بوجاني كفر كيس وحكم مقدس سدح بكتير صور كان وأكون شغال بقول يكونتنكي طلياني أيام قاعدة حلي كي معمول كأفيس أدمنستريزونا فودي شارية إطلاع صومال صور كان وطبعات نشنتي مدحوين سياد بر أو حرق جراية مشاريع هرنويد أو الجهير جري عاصمة ده يصيروا كله لوز مريبت عصب أو آيكون كأ أو حرنت بدحتوي ذا المدوغ marka waa saddex stage aan isiri hor ku magaalada ay qayb ka ah buugan wuxuu ka hadlayaa magaca Dhuusamareeb ilaa 8 aragti ayuu ka hadlayaa magaca Dhuusamareeb halkii buu ku yimid sidoo kale wuxuu ka hadlayaa waayihii Dhuusamareeb ee soo martay Dhuusamareeb waxa la sheegaa markii ugu horeysay in la degay 1890 oo ceelal magaalooyinka Soomaaliyeed saddex loo kala saaray xadaaradoodu magaalooyin xadaaradoodu ay ka dhalatay hareeraha wabiga magaalooyin xadaaradoodu ay ka dhalatay ceelasha iyo magaalooyin xadaaradoodu ay ka dhalatay u badaha sida Muqdisho iyo Baraawe marka Dhuusamareeb ceelasha ay xadaaradoodu ka dhalatay sidoo kale wuxuu ka hadlayaa maamuladii soo maray ee magaalada Dhuusamareeb wuxuu ka soo bilaabayaa saldanada Ajuuraan dhulkan waxa lagu tali jiray magaalada leeyahay Ceelbuur oo bariga gobolka Galgaduud dhacda sidoo kale wuxuu ka hadlayaa madaxweynayaashii halkan soo boqday iyo sidoo kale dadka caanka ay deegaankan ka soo jeeda aan ka xusi karno Cabdiqaasin Salaad Xasan iyo Xaliimo Khaliif Magool aad baa ma santaa ustaadi sharaf ayeen ay tahay buuggan inaan taariikh badan oo aan ka aqoon Dhuusamareeb aan ka heli doono ustaadkana waxaan u rajeynayaa isaguna in buugaag kale hor leh oo taariikhda Soomaaliyeed naad qortaan ku rajeeyay sharafi karaamada ma santaa thank you hadiyad ka weyn oo qof Soomaaliyeed oo ku siilaha ma jirto inaad taariikh Soomaaliyeed aad ka dhaxasho buuggan ama aad ka akhriso oo naga mahad celinaya ustaadka Maxamed Cali Farcade magaalada Dhuusamareeb